war-saxaafadeed iyadoo la tixraacayo war-saxaafadeedkii ka soo baxay wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalk Soomaaliya ee ku aadanaa arrimaha adeegyada waxbarashada gobolka Banaadir kuna taariikheysnaa 8 November 2021 maamulka gobolka Banaadir si waafaqsan dastuurka dalka qodobkiisa 50aad 51aad iyo 52aad iyo sidoo kale sharciyada kale ee dalka sida sharciga maamulka gobolka iyo degmooyinka dalka ee nambarkiisu yahay 116 ee soo baxay Agoosto 2013 qodobkiisa 23aad farqooyinkiisa 3, 4 iyo 7 ee qeexaya waajibaadka iyo awoodaha gudoomiyaha gobolka Banaadir. sidoo kale maamulka gobolka Banaadir waxa uu maamulaa adeegyada waxbarashada gobolka si waafaqsan heshiiskii dhaxmaray wasaaradda waxbarashada federaalka iyo maamulka gobolka Banaadir ee la saxiixay 9kii bishii Agoosto 2020 oo uu goobjoog ka ahaa garyaqaanka guud ee dowladda hay'adihii xilka ra'iisul wasaaraha iyo hay'adaha kale heer federaal iyo kuwa maamulka gobolka Banaadir iyo dhammaan daneeyaasha kale waxbarashada. qodobkiisa kale ah qodobka koobaad qodobka saddexaad xarfadiisa ba iyo ta qodobka afraad xarfadiisa ba ta iyo ja qodobka lixaad xarfadihiisa ba ta ja ha kha sa sha ta a ga iyo fa qodobka toddobaad tirsiyadiisa koobaad labaad saddexaad iyo afraad maamulidda jihaynta iyo horumarinta adeegyada waxbarashada waa mid ka mid ah waajibaadka shaqo ee ku tilmaaman sharciyada dalka uuna u xil saaran yahay maamulka gobolka Banaadir si la mid ah maamulada kale ee dalka ka jira. guud ahaan hantida guud iyo dhulka ku yaala caasimadda Muqdisho waxaa ilaalinteeda jaangoynteeda iyo horumarinteeda u xil saaran dowladda hoose ee Muqdisho sida uu qabo sharciga maamulka dhulka nambarkiisa 7 ee soo baxay December 1980. maamulka gobolka Banaadir wuxuu aad ugu xun yahay sida ay wasaaradda waxbarashada federaalka u hareermarsan tahay una jebiso mar walba dastuurka dalka shuruucda iyo ku dhaqanka heshiisyada quseeya adeegyada waxbarashada ee kala dhaxeeya maamulka gobolka Banaadir iyadoo mar walba faragelin taban ku hayso maamulka waxbarashada gobolka Banaadir kaliya taasoo ka soo horjeeda nidaamka adeeg daadejinta kala sareynta iyo kala saarista awoodaha hay'adaha heer federaal iyo maamul goboleed iyo sidoo kale nidaamka federaaleynta dalka. wasiirka wasaaradda waxbarashada xaq iyo sharci midna uma lahan inuu baabi'iyo ama uu diido go'aankii ku saabsanaa soo saarista tariifada adeegyada waxbarasho kaas uu si rasmi ah u soo saaray gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho oo asiga sharciyada dalka awood u siinaya in uu soo saari karo xeerar maamul sida uu qabo sharciga number 6 ee soo baxay 1980 iyo sidoo kale sharciga number 116 ee soo baxay 2013. waxaa nasiib darro weyn iyo dib u dhac ah in wasiirka wasaaradda waxbarashada federaalka ay isaga dhaxdaran tahay raadinta iyo ilaalinta danihiisa gaarka ah ee ku dhisan fikirka faa'iido doonka ee u adeegaya shakhsiga taas oo curyaaminaysa danta guud gaar ahaan waxbarashada iyo caafimaadka gobolka Banaadir. wuxuu maamulka gobolka Banaadir aad ugu xun yahay in wasiirka wasaaradda waxbarashada federaalka ee xilligaani uu caadeystay jibinta iyo ku tumashada heshiisyadii maamulada waxbarasho ee u dhaxeeyay maamulka gobolka iyo wasaaradda asigoo ka leh dana gaar ah oo faa'iido doon ah. maamulka gobolka Banaadir wuxuu xiriir wanaagsan la leeyahay dhammaan hay'adaha kala duwan ee waxbarashada ka shaqeeya wuxuuna mar walba diyaar u yahay kala shaqeynta arrimaha horumarinta waxbarashada iyo ka jawaabista wixii tabashooyin ah ee ka dhasha go'aanada maamuleed uu soo saaro maamulka gobolka Banaadir. laga soo bilaabo Agoosto 2020 ee uu maamulka gobolka Banaadir si rasmi ah ula wareegay maamulka waxbarashada gobolka wuxuu ku hoolanaa in caruurta ku nool gobolka Banaadir ay helaan waxbarasho tayo leh deeqaha waxbarasho ee xaq u leeyihiin iyo in ay mar walba helaan maamul u dooda isla markaana ilaaliya xaqooda waxbarasho iyo horumarineed
si la mid ah caruurta kale ee dalka. maasanidin. agaasinka wuxuu asaasan yahay 2 sano wax yar dhiman 2 sano uu samaysan yahay wuxuu waqti badan ku bixiyay inuu waxbarashadii tayeeyo. waxay ogtihiin markii gobolka Banaadir waxbarashada lagu wareejinayay ardada ugu badan ee dhacda gobolka Banaadir ahayd. sanadkii gobolka Banaadir waxbarashada lagu wareejinay 2019 Soomaaliya imtixaanka waxaa dhacday 8550 arday. markaas agaasinku bilow ahaa wasaaradda waxbarashada ayaa magaalada waxbarashadeeda mas'uuliyadda haysay iyo bahda kale. markii anaga aan la wareegnay san dugsiyeedkaas aan shaqeynay 2021 aan kormeero sameynay fasalka 8aad gaar aan kormeer ugu sameynay fasalka 12aad gaar aan kormeer ugu sameynay. waxaan la xisaabtanay maamulayaashii iskuulaadkii waxaan wada shaqeyn toos ah la yeelanay bahda waxbarashada gaar ahaan iskuulaadka maamulayaasha iskuulaadka. iskuul kasta waan tagnay ardada imtixaanka galaysana waa soo aragnay. waxaan kaloo daba galnay inuu dhammaado manhajka waxbarashada yacni buugaagta ardada loo dhigayo inay dhammaadaan ayadana waqti baan gelinay. arrimahaas oo kormeerka aan ku sameynay asagoo weliba xafiiskii uu curdan yahay maxaa ka soo baxay. waxaa ka soo baxday imtixaankii 2021 markii la qaaday 50% ayaa dhacday markii loo fiiriyay ardadii hore. meesha ardada gobolka Banaadir ay 7900 iyo xoogaa ay dhaceen 2020 markii annaga san dugsiyeedkaas aan shaqeynay ee kormeeradaas aan sameynay ee waxbarashada aan tayeynay waxaa dhacday 4000 iyo wax yar. san dugsiyeedka 2020 4000 iyo wax yar dhacday taasoo u dhiganta markii loo fiiriyo san dugsiyeedkii hore ee annaga marka waxbarashada ku wareejinayay ahayd ee markaas maamulka aan rasmi ah gacanta noogu jirin 50% ahayd ayaa markii kan loo fiiriyo. tan labaad oo la hormariyay waxa ahayd markii la ku wareejiyay waxbarashada gobolka Banaadir xogta ardada gobolka Banaadir ee saaran imiska online-ka lagu aruuriyo xogta lagu aruuriyo 12% ayaa saarneed ardada gobolka Banaadir. ardadaas aan sheegayn waxa weeye fasalka 1aad ilaa fasalka 12aad. maantay oo aan joogno waxaa maraynaa 41% ayaa xogtii saarna. si aan u dhammaystirna 100% u gaarsiino fasalka 1aad ilaa fasalka 12aad aan u gaarsiino hadda markii sana dugsiyeedka aan bilownay waxbarashadii kormeer aan sameynay. iskuul kastaan tagnay waxaan soo fiirinay tiradii ardada ee san dugsiyeedkii hore ee waxbarashada u xirantay fasal kasta iskuulaadkii ku soo laabtay mise kuma soo laaban. maxaa arday aan xogta imiska ku xareysnayn ee iskuulkana joogta aana ku jirin xogta online-ka ah. taasoo haddii aan ardadaas la xareen mar kastaba ay ka dhalato mushkilad ah markii imtixaanaadka la gaaro gabagabadooda ayaa waxaa lagu leeyahay intaasoo arday ayaa imtixaankii 8-kana loo diiday imtixaankii fasalka 12aad ee shahaadiga ahna loo diiday. si ardada arrintaas u dhicin waxaan soo hubinay fasal kasta ee 12 fasal imisa arday banaanka joogta. waxaa noo soo baxday tiro ahaan qiyaastii 35,000 ilaa 40,000 oo arday inaysan ku jirin xogta imiska. markaan arrintaas soo xaqiijinay waxaan idhi see u hubinaa marka see iskuul kasta xogta uu sheegay inuu u saarnayn imiska hadda iyadoo tiro wayse u hubinaa. isniintii hadda la soo dhaafay maanta waxaan joognaa talaada soo maaha. isniintii shalay ahayd waxaan bilownay kormeer aan ku sameynayno dhammaan iskuulaadka ku yaala gobolka Banaadir 636 iskuul ayaan kormeer u aadnay. dhammaan degmooyinka 17 degmo iyo 3 deegaan ee degmada sugaysa Garisbaalley iyo Daarusalaam iyo Gubadley. 72 shaqo ka mid ah howlwadeenada agaasinka ayaa u dirnay loo tababaray qof kasta oo ka mid ah muxuu ahaa dadkaas loo diray kormeerka howlwadeenada loo diray kormeerka iskuulkiiba 2 qof aa tegaysa waxay wataan iskuulka ay tagayaan
fasalka koobaad fasalka sideedaadka iyo form 3ga iyo form 4ka xogtoodii daabacan form 1ka iyo fasalka form 2 waxa laga yaabaa in isweydiiyay asay maxaa kormeer lagu sameyn waayo form 1ka iyo form 2ga ardada joogta imtixaanka anaga ka qaadnay waa labadii sano aan soo dhaafnay kii hadda dhamaaday iyo kii ka horeeyay marka ardayga labaas fasal fadhiya ee aan imiskayna ku jirin waa inuu ku yimaadaa bedel waa inuu ka yimid gobol ama dibadda uu ka yimid saas uu ku fadhiistaa laakiin arday bannaanka iskaga yimid ma socon karto fasalada koobaadka ilaa afaraadka ayaga lama xiro sandugsiyadka si loo furo waxaa la xiraa markuu sandugsiyadku dhammaanayo maadaama ardada meeshaas dhaqaaqooda u badan yahay fasalka shanaad su-aalaha deertaan intaan shirkan ku jirna dadka qaarkood ay weydiiyey marka inaan hadda ka jawaabaan rabaa fasalka shanaad lixaad iyo toddobaad ayaga iskuulaadka waxaan u dirnay excel shax aan leenahay shaxdan soo buuxi ku soo shub ardada bannaanka kaa taalla arday kasta oo bannaanka kaa yaalla xogtan ku soo shub in badanoo ka mid a kusoo shubeen ilaa hadda 10 kun oo arday ku dhawaada hadda naloo soo gudbiyey inta kalena way socotaa iskuul kasta markuu ardadii excelka noo soo diro oo aan hubino inay dhammaystiran yihiin waxaan u furaynaa userkiisa wuxuuna soo gashanayaa xogtii ardada ee excelkaas uu nagu soo diray arday ka dheeriya hadduu kusoo darsado oo lagula xisaabtamaya marka waxaan rabaa haddii dadka qaarkood waalid yihiin oo meeshaan qofka hadda su-aasha igu weydiiyo oo imaqlaayo inuu saas u fahmo يعني فصلها أساسا كحلنا فصل سداد وشهادة فوم تريقة وشهادة لما سنة سوى سعودان يفهم فرق وحتى الشهادة احنا اسكولات فيها شغلة تقني تضوم معلنا يسوعان يسا وشغلة كبل لابطي اسكول كستوى حال صوت ترينا هي أرضاء جوكتا ما إنه معمولها الاسكوي الديناية وحالي محمد علي عبدي بجوغا اسكولك أو فصل على قلها هي قف الله يرينا هي قف الله صوت تابنا هي مركي لسو يريو ولا صوه بيحكتونا ardayga bannaanka ka jooga aan imiska ku jirin ee dokumentiga aan la yeerinayay aan ku jirin waa la soo qorayaa markii bacdin hubina la marsiinayaa hubinta markii dhamaatana waxaa loo furayaa iskuulka userkiisa loo furayaa waxaa leeyahay 10 arday ee fasalka form 4ka ama form 3ga ama sideedaadka bannaanka ka joogta ku soo xaree arintaas markay dhamaato marka shanaad iyo lixaad iyo toddobaadna xogtoodii iskuulaadka hadda waa loo furay waa loo bilaabay furitaankii qaarna weli looma furin waxaa lagu furi waayay xogtii laga rabay soo gudbin kuwa hadda loo furayna shaqada way socotaa kuwa aan loo furina xogtii markay soo gudbiyaan dugsiga form 3 form sideedaadka iyo form 3 form 4kan ayaga loo furo ay soo gudbiyaan waxaan rajaynaynaa bisha 12aad ee December hadda nagu soo aadan 2021 ku dhamaanayso waxaan u soconaa waxa waaye in la waayo arday laga soo bilaabo fasalka koowaad ilaa fasalka 12aad ee iskuul dhigta ee aan saarnayn imiska taasoo hadhowtina siinaysa 100% ardada noo joogta inay yihiin inay xogtaas wada saaran yihiin imiska wada saaran yihiin online ka saaran yihiin taasoo naga badbaadinaysa in hadhowta ardada imtixaanka ay ka baaqdaan su'aalaha labaad ee isweydiiyay waxa kamid ah iskuulaadka gobolka banaadir ku yaala in badan oo kamid ah ardada maxay banaanka uga joogaan waxaa la isku dhijiyaa fasalo markii la joogo dugsiga hoose dhexe koobaad ilaa sideedaad ilaa toddobaad waxa loo yaqaano af Soomaaliga ay u dhahaan bahda waxbarashada u yaqaanaan kooraska haddana ay wasaaradda waxbarashada manhajka ay soo saartay iyo siyaasadda iyo framework qaab dhismeedka u sameysay waxaa loo yaqaanaa waxbarashada dadban ama ABE afka qalaad waxbarashada fasalka koobaad ilaa fasalka toddobaad ee gobolka banaadir waa ABE taasoo macnaheedu tahay iskuul kasta ee ku yaala gobolka banaadir hal iyo laba maahane 636 iskuul waxay sameeyaan fasalka waxay isku dhijiyaan laba fasal مثلا waxay sameeyaan saddexaad iyo afraad wuxuu ku leeyahay ardayga waxaan rabaa sandugsiyada markuu dhamaanayo inuu afraad ii dhameeyo saddexaad iyo afraad isu kaysii shanaad iyo lixaad isu kaydar lixaad iyo toddobaad isu kaydar ayagoo marka ka cabsi qaba in imiska laga xiro maxaa maamulayaasha iskuulaadka ayay ardadii banaanka ku hayaan marka waxa uu sheegaynaa maamulayaasha iskuulaadka ilaa haddeertaan maamulka gobolka banaadir iyo agaasinkiisa waxbarashada gobolka banaadir mas'uulka ka ah ma jirto meel uga dhawaaqay ama dukumiinti uu soo saaray uu leeyahay waxaan joojinay course ama waxa loo yaqaan waxbarashada dadban
laakiin insha allah sandugsiyadka hadda noo socda waxaan samayn doonaa muxuu ahaa meel la iskugu yimaado oo looga doodo oo manhajka wasaaradda waxbarashada ay soo saartay ABE-ga meelo looga doodo si loo fulin lahaa sandugsiyadka soo socda inta sandugsiyadka soo socda hawsha laga fulinayana sida hadda ku wadaynaa iskuul kasta kooraskiisa waa loo ogol yahay laakiin adoo kooras ugu ogol yahay waa in ardaygaada uu imiska ku jiraa hadduusan imiska ku jirin macnaheedu waxa ardaygaas ma xisaabsana waay marka saddexaad markuu ardayga ku dhameeyo agaasinka qaybta iskala shaqaas uu qofka la soo wadaagaya wuxuu leeyahay hadda waxaa noo soo socota imtixaankii nisacaamka bisha 12aad hadda soo socota waxaa la qaadaya imtixaankii sanadka kala barkiisii iskuulaadka waxaa la furay Agoosto imtixaankii koowaad ee sanadka kala barkiisa wuxuu bilaabanayaa December markuu imtixaanka bilaabanayo iskuulaadka kooraska dhigo dhan waxay arday kasta uu ka baxayaa fasal ayuu dhameynayaa مثلا hadduu ardaygan shanaad iyo lixaad isku jirta uu ahaa wuxuu dhameynayaa shanaad markii imtixaanka uu galo sandugsiyadka qaybtiisii labaad la furaayo January wuxuu ardaygu bilaabayaa fasalka lixaad iskuulka wuxuu la soo xiriirayaa maamulka xafiiska agaasinka ayuu la soo xiriirayaa qaybta iskale qaybta adeegyada waxbarashada gaar ahaan qaybta dugsiyada wuxuu sheegayaa inuu ay ardadii u dhameeyeen fasalkaas una rabo inuu lixaad lagu wareejiyo waa loo wareejinayaa inta nidaamka dambe ee laga hagaajinayo arrimahaas maxaa loo sameeyaa marka waxaas oo dhan waxay qayb ka yihiin in waxbarashada la tayeeyo